tobankani waa toban aad u qaali ah. Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam dadaal dheeraad ayuu samayn jiray oo dheeraadka intii uu samayn jiray bisha inteeda kale. Sida sheegtay Aisha radiyallahu anha, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. وها قد حلت العشر الأواخر فبادر ثم بادر ثم بادر وإن قصرت في ثلثيه فانهض وقم وانصب وشد لها المآزر. قالية نبي محمد عليه الصلاة والسلام دadaal dheeraad ayuu samayn jiray oo dheeraadka intii uu samayn jiray bisha inteeda kale. Sida sheegtay Aisha radiyallahu anha, كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد المئزر وأحيا الليل وأيقظ أهله. رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu ahaa markay tobanku soo galaan mid guntiga adkaysta habeenkiina cibaado ku camira salaad iyo duco iyo cibaadaadka kale sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadalkiisa quraanka oo la akhriyo. wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid toosiya dadkiisa oo u toosiya cibaadada khayrka si ay uga qayb galaan. nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadiisana waa ku dhiirigeliyay inay tobankan ay ka faa'iideystaan iyagoo mar walba ka dhex raadinaya habeenka aadka qaaliga u ah ee la yiraahdo laylatul qadri. ilaahay uu tilmaamay inuu quraanka soo dejiyay inna anzalnahu fi laylatil qadr. rabbi subhanahu wa ta'ala uu sheegay inuu yahay habeen barakaysan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. quraanka waxaan soo dejinay buu ilaahay subhanahu wa ta'ala habeen barakaysan. barakada habeenkani waa xagga amalka wanaagsan ee qofka muslimka ah uu sameeyo ayaa wuxuu ka fadli badan yahay amalka la midka ah ee laylatul qadri aan dhicin ee kun bilood la sameeyo. laylatul qadri khayrun min alf shahr. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri taharru laylatul qadri fi al-ashr al-awaakhir min ramadan. laylatul qadriga waxaad ka dhex raadisaan oo amal saalix oo aad ku dadaalaysaan aad ku raadisaan tobanka dambe ee Ramadaan. waxaanu si gaar ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay habeenada tiroodu ay kala dhiman tahay. laakiin waxaan dadka ku baraarujinayaa waxa dhici karta habeen aan tiradiisu kala dhinayn ay buuxdo inuu laylatul qadri waxa weeyaan uu noqdo inuu habeenada witriga tiroodu kala dhiman tahay uu noqdaa waa sida loogu rajo badan yahay. laakiin waxa dhici karta habeen tiradiisu ay buuxdo 22 24 26 27 habeenka soddonaad oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yiri ba taharru laylatul qadri fi aakhir laylatin min ramadan. laylatul qadriga waxaad ka baadi doontaan oo amalka saalixaad ku dadaashaan habeenka bisha ramadaan u dambeeya. marka qofka muslimka ah wuxuu kaga faa'iideysanayaa awalan inuu salaatul leylka u tukado. waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu man qaama laylatul qadri iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. qofka laylatul qadriga salaatul leyl kaca isaga oo rumaysan isla markaana ilaahay daraadi u tukanayo ilaahun ajir kaga doonaya dambigiisii hore ayaa loogu dhaafaa. waa shay aad iyo aad qaali u ah. waxa kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dhiirigeliyay inuu qofka muslimka ah u ducaysto. waxaanu nabigu sheegay waliba duco gaara oo ay tahay qofka muslimka ah guud ahaan isagoo ilaahay baryaya si gaar ah inuu ugu dadaalo. oo Aisha radiyallahu anha markay rasuulka calayhi salaatu wasalaam weydiisay haddaan ogaado habeenka laylatul qadriga uu yahay maxaan idhaahdaa, wuxuu rasuulku u sheegay inay tiraahdo اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. calaamado uu sheegay oo habeenkan uu leeyahay waa jiraan. calaamadaas waxa kamid ah kuwa la ogaanayo markuu habeenku baxo oo qofka waxay u tarayaan quri ay tahay inuu bishaaraysto qofkii dadaalay habeenka cibaadaysta oo qalbigiisa farxad ay gasho yiraahdo calaamadii waa taa muuqatay oo habeenkan xalayna dhaafay aan cibaadaystay laylatul qadrigii waa. calaamadaas waxa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inay qorraxdu subaxa habeenkaas subaxnimadiisa inay soo baxdo iyada oo cas oo aan lahayn wax fallaadha ah. habeen kulul maaha, habeen waxa weeyaan qabowna maaha, waa habeen jawi ahaan dhexdhexaada. kullay jawigaana waxa cabirkiisu ku miisaanmaya qofku had iyo jeeraale meesha uu joogo. dad baa meel qabowba jooga, dad baa meel kulul jooga. marka habeenkaasi yaani habeenadii kale waa ka duwan yahay oo kuleyl haddii meesha kuleyla tahay kuleyl daranna ma laha, haddii qabow tahayna qabow daran ma laha. habeenadii kale siday ahaayeen si ka dhexdhexaadsan ayaa uu ku sifaysan yahay. waxaa jira calaamado kale oo laga yaabo dadka qaarkood inay sheegaan laakiin wax daliil aan lahayn sida aydu macida iyo kuwa la midka ah iyo dameeru maciyaan iyo
kuwaasi wax daliilo oo sheegay ma jiro oo saxiix